waxaa reeban qoriga in la qaato isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhashiikaha iyo qoryaha ka sii waaweyn ee ku xiran yahay reeban waxaa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yiraahdaa RPG-ga dheh in magaalada lagu dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalinayo la dhaha reeban waxaa kaloo reeban qoryaha dirandooriga u dhaco oo BKM-ka kamid ah iyo wixii la mid ah ayaa reeban in la isticmaalo maxaa la yiraahdaa waxya dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay waxaa la yiri ciidamada amniga oo howlgallada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo waxaa isticmaali karo oo markaasi la dhex mari karo ciidamada u kala gooshaya gobolada bacdama ay socdaan howlgallo hubeysan oo argagixisada lagula diriraayo maadaama ay socdaan waxaa isticmaali karo ciidamada u gudbaayo laakiin waxaa la socda taas inay magaalada ku la dhex maraan shardiya la socdo oo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas'uulka ka ah qof walba sida uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhamaatay maxkamad ahaan annaga mushkilo weyn aan ku qabnay ilaa hadda kiisas taagan in meel control ah inta ciidan yimaadaan la isku xabadeeyo markaas dad rayda ay ku dhintaan kadibna mas'uuliyadda cid qaadi lahayd waa kana bilaabay iyo kana bilaabay anigu istaajiyo la yaqaano taliye hebel ah ama mas'uul hebel ah asiga ma saaxibada ugu bilaabay leeyahay markaasna ay maxkamadda ku adkaato sharci ahaan in ay hesho cid mas'uuliyadda rasmiga ah qaadi lahayd xaqi qofka dhintaan meesha oo ku baabaa saas darteed markii waxaa la rabaa hadda kadib mas'uuliyad in la qaado talisada ciidamada ee halkan fadhiyo waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa saaran mas'uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxa way saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasabtaa xeerkan in la hirgeliyaa inay u sheegaan qofka inta qori culus soo qaatay dhig iyo dhigay la dhaho hadda kadib wax dhexda yeelan ma ninkii wataa mas'uuliyadda qaaday macna waxa mas'uuliyadda qaaday qofka meesha hubka la yimid ee dhig inta la dhahay ma dhigay dhahay qof kasto meesha ku dhinta mas'uuliyaddaas dhexda ma taalee ninkaas qaaday macna mas'uuliyiinta marka oo ilaalada loo idmaday wato oo ilaalada loo fasaxay oo hubka fudud wato oo wadooyinka isticmaalayo waxa la rabaa marka ay ciidamada controlka joogo oo askarigaas maskiinka ah qoraxda joogo oo u yimaado waxa la rabaa inuu ixtiraamo inuu u hoggaansamo tilmaamaha iyo amarada iyo talooyinka uu siinayo hay'adaha amniga ay bixinayaan inuu hoggaansamaana la rabaa waxa la rabaa in uu ogolaado in la istaajiyo in la hubiyo la weydiiyo cidda uu yahay iyo meesha uu socdo la ogaado waxaa la rabaa mas'uuliyiinta ciidanka naftigooda waxa saaran mas'uuliyadda iyagana qofka mas'uulka ah iyo qof kasta muwaadin ahba gaar ahaan mas'uuliyiintu inay siiyaan tixgelinta ay mudan yihiin iyo mudnaantooda inay siiyaan oo aysan qofka mas'uulka ah sidii rabaan aysan uga naftigooda ula hadlin xakamaynta hubka caasimadda sidaad wada ogtihiin waa xeer lagu ilaalinayo amniga caasimadda dadka ku nool waa xeer tilmaamo iyo habraacyo ina siinaya sidii aynu ku xakamayn lahayn hubkan faraha badan ee magaalada dhex maraya runtii waxaan rajaynaynaa haddii aan sidaa ay tahay aan ugu dhaqanno ama say tahay aan u fulino inay ka soo bixi doonaan wax fiican oo bogaadin leh dadkeenuna ay ka nasan doonaan argagaxgelinta isku dhacyada ciidamada iyo waxyaabaha aan la garanaynin magaalada dhex ordaya ee sumadlaawayaasha mudane wasiir magaalada muqdisho toddobaadyadii la soo dhaafay shaqooyin fara badan ayaa ka qabsoomay ciidamada amnigu waxay qabteen shaqo aad iyo aad bogaadin u leh waxaan dardar gelinay la xisaabtanka iyo isla xisaabtanka saraakiisha goobaha shaqada ku sugan waxaan isbedel ku sameynay fadhiyadii iyo saraakiishii howlwadeennada ka ahaa caasimadda intooda badan waxaa noo soo baxday shaqo fiican oo hortabin u leh ummadda Soomaaliyeed inay qabsoontay waxaan rajaynaynaa insha Allah annaga shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir aan kaashanayno inaan guuleysan doono cadawga kuna sii wadi doono hadda shaqada aan wadno siina dardar gelin doono arinta xukamaynta hubka magaalada Muqdisho sida aad wada ogtihiin ama go'aanka laga qaatay ee xeerka laga soo saaray waxa la xakamaynayaa waa hubka waaweyn ee gaadiidka saaran dhashiikaha iyo BKM-ka iyo qoriga madfaca uu ku jiro 7ka iyo hubka yaryar ee sumadlaawayaasha ah ee lagu dhaxwato magaalada ee bajaajka la saaray ama ciidan qalabka sida ha ahaado ama midow ka aha oo maaragtay sumadlaawaha ha ahaado
waxa la xakamaynayaa dadka laga qabanaya waa hubka waay waxaa laga maarmaan ah ciidamada u xil saaran in lagala shaqeeyo mar kastaba hawshaasi siday ku suuro geli lahayd ama ay ku fuli lahaayeen in lagala shaqeeyo waa laga maarmaan marka kuwa qoryaha ku xarakoo jiray ama xabadda iska ridi jira ayagoon ka fiirsanin ee dadka ku dhaawici jira ku waxyeelay jiray maanta waxaan aaminsanahay haddii xeerkaani dhaqan galo in laga badbaadi doono in badanoo ka mid ah oo dadka macno darro isaga dili jirta duqi caasimadda anigoo ku hadlaayo waxaan leeyahay dadweynaha magaalada muqdisho waxay baahi u qabaan amni ayay baahi u qabaan amnigoodina cidda mas-uulka ka eed waa maanta cidda halkaan fadhido waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo sidii aan u ballan qaadnay inaan u istaagnay inaan arrintaas uga dhabay doono haddii ilaa yidhaahdo maadaama hal ciidan oo amniga dalka wada sugaya tihiin waxaan ugu yeedhanaa magaca la yidhaha ciiltire oo ay dadka Soomaaliyeed way ciilanaayeen ciilkii baa ka tirteen waxaan ku bogaadinaynaa aad ugu mahadcelinaynaa shaqada muuqata ee ilaa hadda ay qabteen ciidankan anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan ugu baqayaa madaxda kala duwan ee ka mid yihiin saaxiibadayda golaha wasiirada saaxiibadayda xildhibaanada ah in ay u hoggaansamaan sharcigan oo ah muxuu ahaa sharci lagu xakamaynayo hubka dadkuna inay fahmaan hubka dhigis lama gaadhin weli waa la gaadhi doonaa wajiyo badan buu yeelan doonaa laakiin wajigii koowaad ee marayna waxa weeyaan caasimadeennu si qoryaha waaweyn ee argagaxa leh ee cadowga lagula dagaalamo ee cid lagu dilaya magaalada dhexdeeda aanay ka muuqan ugu muuqato magaaladuna magaalo nabadeed inay dhigaan guryahooda dhigtaan qofkii aan ka maarmin gaar ahaan shirkadaha private-ka ah waxaan iyagana baaq ugu dirayaa halkan inay iska diiwaan geliyaan maadaama ay shaqadoodu tahay inay ku shaqaysaan hub inay iska diiwaan geliyaan wasaaradda amniga iyo cid kasta oo rabta inay hub haysato ha ahaato AK ama bistoolad inay u hoggaansamaan sharciga la soo saaray oo ay muxuu ahaa iska diiwaan geliyaan si ay sifo sharciga ugu haystaan hubka loola ogolaado aan loona ogol yahay waxaan kale oo aan aad ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ciidanka dhalinyarada runtii iyaga oo tababar ka soo baxay oo aan degin hawl degdeg markiiba loo geliyey ilaa haddana midhihii hawsha lagu diirsado oo shacabka Soomaaliyeed markhaati ka yihiin waxaan baaq u dirayaa shacabka Soomaaliyeed ku nool magaalada Muqdisho inay garab istaagaan ciidankooda inay la fududeeyaan amniga waxaa halkaa ka bilaabmaysa hadalkii madaxweynuhu sheegay ee ahaa Soomaali heshiisa macnaheedu waxa weeyaan dawladda iyo shacabku inay heshiiyaan marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa ciidamada amnigiina sugaya inaad taakulaysaan inaad u fududeysaan inaad u tilmaantaan cadowga waxaan ku celinaynaa haddana mar walbana ku baaqaynaa baaqi madaxweynaha ee garanwaa in la iska qabto